بسم الله الرحمن الرحيم marka hore iyo kitaab salaad saxbigeedu sareysa lagu suuliyo baad lagu soo dhaweeysan salaadaas oo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaadii badiba aad yusuf hadarta baadka salaama waxa rabaa halkan xambariyo u jiro dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed meel walba dibadda afkeeda ay joogaan qaasatan macallimiinta iskuulka salaama waxaan leeyahay hambaliyo waxaan rabaa halkan inaad ku soo jeedo khudbad ku saabsan sida ay leedahay macallinka inkastoo aan soo koobi karin sida ay u leeyihiin macallimiinteena taasoo nagu bixi doonto luqadda Ingiriisiga waxaan rajaynayaa inaad fahmi doontaan insha Allah After a while greeting throughout my job, actually, teacher is like a star. Teacher is the one who builds our mind. Teacher serves our mind in the future. A good teacher is like a camel, it consumes itself to light the way for others. Teacher is someone who helps us learn and grow everything. He is kind and patient. And always there to guide us on our way. Teacher teaches us like how to read, to write, but in public speaking. And count to 10, those are very important for us. Teacher makes us learning to find the story. Teacher is like a gift who gave us to Allah. So dear brother and sister, I can calculate the attitude of teacher. I say good morning.